Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu asxaabta qiimaha badan ee ku xiran kanaalkan youtube-ka ee Danjire channel isku soo noqod wanaagsan iyo arti kale xiiso leh. Asxaabay halkan waxaynu kula wadaagayaa waxyaalaha u wanaagsan qofku markuu habeenkii suxuuranayo inta lagu guda jiro bishan Ramadaan. Waxaynu ogsoonahay dad fara badan inay ka cawdaan xilligay soomayeen maalintii laab olol ama laab jeex, waxaana arrintaas sababa cuntooyinkay markaa ku suxuurteen ay isticmaaleen. Cuntooyinka badanaa laab jeexa keena ama laab ololka waa cuntooyinka suugad ku badan tahay sida bariiska iyo baastada noocyadaas. Asxaabtayda sharafta leh waxaan halkan kula wadaagi doonaa haddii aad isticmaasho aad dareemi doonin laab jeex dambe. Fadlan waxaan kaa codsanaynaa hadduu ku soo gaaro fiidiyogan sii share garee, subscribe-kana saar, like-tana ku cimaamad walaalaha kala gaarsiisa iyaguna uga faa'iidaystaan. Cuntada u wanaagsan inaad ku suxuuratay waa boorashka. Boorashka ayaad soo iibsanaysaa sida ama loo yaqaano shoofaanka noociisa qamandiga ka samaysan. Sida loo sameynayo ayaa wax yar ni iftiimin doonaa biidhnillah. Waxaad soo qaadanaysaa digsigaaga, waxaanaad ku shubaysaa digsigii 2 koob oo biyo ah. Kadibna boorashka ayaad soo qaadaysaa oo bakeeri ayaad ku shubaysaa. Markaasaad isku shubaysaa biyihii iyo boorashkii muddo 10 daqiiqo ayaad u daynaysaa dabka. Boorashka mana jilcinaysa, waxaad ka dhigaysaa nooc adag malqacadu qaadi karto. Marka uu bislaado oo aad dabka ka soo dejisay ayaad soo qaadanaysaa baaquligaaga ama jabcadaada si dadka qaarba u yaqaanaan. Waxaad soo qaadanaysaa xabad muuse waad ku googoynaysaa. Haddii aad tufaax heli kartid asagana sidoo kale ayaad ku googoynaysaa. Qudaarta nooca marba aad awoodi kartid haysatid. Intaa markaad samaysid waxaad soo qaadanaysaa beddelka sonkorta malabkiisa saafiga ah. Waxaagi oo saas ugu diyaarsatay ayaad markaa isticmaali doontaa oo cuni doontaa insha Allah. Boorashka waxaa ka buuxa macaadin iyo borotiinno aad iyo aad fara badan oo ugu wanaagsan yahay caafimaadka in la isticmaalo. Dadka waaweyn ayaa la siiyaa bilaa nafaqada ah sidoo markaa awoodda kor ugu soo qaado oo qofka ka dhigo qof markaa awoodiisu xooggan tahay. Wixii talooyin tusaale waxaanu kula wadaagi doontaa xagga hoose commentiga, iyo haddii aad haysid barnaamij u baahan warbixin aan ka samayno intaan ku kulmi doono video kan lamid waxaan kaga tagay fi amaanillah.